dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku baaqday in la joojiyo weerarada Israa'iil ay ku hayso dadka reer Falastiin. Wasiir Dowlaha Arrimaha Dibadda Xukuumadda Bilaal Cusmaan ayaa ka qayb galay shir gaar ah oo guddiga fulinta ururada iskaashiga Islaamka heer wasiir arrimo dibadeed ay kaga doodayaan duulaanka Israa'iil ay ku qaaday dhulka reer Falastiin gaar ahaan magaalada barakeysan ee Qudus iyo howlgallada rabshadaha wato ee laga geystay hareeraha masaajidka Al-Aqsa. shirkan oo ku qabsoomay habka fogaan aragga ayaa waxa uu ka yimid boqortooyada Sacuudiga oo ah shir gudoonka kaalinteeda ee ururka iskaashiga Islaamka ayaa wasiir Bilaal Cusmaan waxa uu ka jeediyay khudbad uu kaga hadlayay sida Soomaaliya ay uga go'an tahay in xal loo helo arrimaha Falastiin. wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay in qadiyadda Falastiin iyo tan masaajidka Al-Aqsa ay tahay mudnaanta koowaad ee dalalka muslimiinta ah.